السلام عليكم أصحابتي وأنا سلام مالك استودونك على السكجوتين ولا لهين ليلى يا أمل أودني له وسلامتي مال بقى جوتين أدونك قال وناكسن هبينا الناس تكتب وناكسن أسر وناكسن أول وناكسن أنت عينها دمان هاي مركز لبضي أنا أعرف اسك فهمه وحاول نسمع على صودا عودي بالبلاد يهتم بكرة حياة صودا قالت waxaan ii wadnaa ila tali oo aad muhiim u ah asxaabtayda oo laga baahan yahay inaad ka soo ra'yigiina ka dhiibatiin hey ila taligana waa gabar Soomaaliyeed walaasheed mar kale marna saaxiibada ayaan aqoon wala umali aqoon laakiin gabar aqoon u leeyahay oo YouTube ayaa ii soo dhigtay inaan ka hadlo aan ra'yigay ka dhigto asxaabteeduna ay ra'yigay ka dhigtaan ra'yiga qof baa fikrad yacni ka dhiiban karo qof walba dadku isku mid ma aha marka insha Allah aan u duceyno walaasheen walaahi dhibkii culeyska dul qaado waxayna ku bilaabanaysaa sheekadeeda waxay tiri ninkaygu waxaan isqabnaa muddo adiga dhowr iyo 10 sano maasha Allah ilmo waaweyn waaye aqli leh waxay dhahday ninkayga anoo ku dhib qabo oo yacni anoo ku dhib qabo oo haddana wax dhib kale igu daray waxay dhahday waan qarsan jiray dhibkayga laakiin hadda waan qarin waaye haddana waxay dhahday muddo adiga dhowr iyo 10 sano isqabnaa dhowr iyo 10 sano ilmo isku dhaleen una qarin jiray shan dhowr cunug waysa adiga shan muddo adiga dhowr sano waa xweetii uga qarin jiray marka yacni la dhaho cunuga xanuunsan istaal la aadaa qarnaa markuu shaqada iyo banaanada aado waxay dhahday qarnaa oo markuu banaanka aado la xasma leeyahay caruur uu leeyahay maya anagoo sida ugu dhiban oo leeyahay banaan oo markii adiga marka qaar ogtahay ilmaha awtil banaanad iyo kale fasaxado kale marka la bixiyo taksiga guriga iga qaaday dhahday meesha uu geynaa uu soo celaa yacni ma rabo inuu waxa la arkay dhahday waray waxa weyn oo qaraha ma aqaan wax dhib ka taaganta anoo sidii ugu dul qaadanayo oo dhibkii iskaga aamusan oo haddana wuxuu ii keenay naag ayaan qabaa waray ayaa lagu qaweydeenaa qabaa wuxuu ku naag bil iga baahan maahan naag kurkuriga bixi dheesa maaha waa naag ku maqan meelaha ku filan oo waxeeda dhan horta sanadka waxay soo batabnaa inta soo shaqaysteen nimankii aroosay badanaayo asaaba qaatid bilo taaganta ay wadataa wallaahi laakiin waa fiicin waxyaalahaas noocaas marka waxay dhahday wuxuu dhahay ninkii waxa naagta xabay iga baahna waa qabaa waa dareemi kartiin mahano dhibkii imaan kara halkaas أول أسيق دبل وقبي أمك بناك مرة الله حاسي عروم على بنكراهي أسيقه مركو ما لكن أبى أسيقه أسكه يسترير كيسنا دقضة تاسك كلام أطلع هبين كذا لما كجرو حتى أسيق شيء حتى ما ناكت منها مو وجوبتي ما قلت هاي يربط بلاس بيرتها ما قانكم ده ما قلت هدي ركس مسكنا قصيوة نفس نوم كي ما تنها الأركان والله مش كري لكن وحيد كانوا حاطة قلدنا لا أسيقه أول قرنا يحلين دبر كوا قلدنا كرجوا قلدنا سنتين أسيقه أول قاتل بلا لو قبي أو مركي نحاس ما وكو شقادة هذا ده حاسي عرور مقبي oo markay tiri oo dhaa cunuga iga xanuus markay dhahaday oo istaal u wado isku arko diidayo taksi ku qaado ku soo celaa markii la ilmaha iid iyo farxada loo wadaa in la isku arko diidaado sax uu soo celinaa sax marka ilmaheedan dhowr 10 sano waaye waxay lama taliyo oo si weyn lama taliyo marka ana iska bilaabay taas aniga waxaan kula tali lahaa walaashay macaan maadaama ba in dhowr iyo 10 sano aan ninkaaga la joogtay oo ugu dul qaadanaysay intaasoo sano oo qaraski adoo ogna ugu dul qaadanaysa hadda naag soo gasho gurigaaga ha uga bixin ilmahaaga hadda waqtigii waxay gaareen oo qaligooda ay saa'idka noqonaysa maan soo aqlisanayaan wax bay ka fahmayaan qos ilma qaan gaaro waayo sida loo yiri waa aragta umleena dad badan oo yareen oo hooy aabaha kala taga dhibka ee leedahay caruurta u keenayso maadaama intaasoo sano abaa askiga soo dul qaadanaysay ilmahaaga iyo aabahood
haddana iskiga dulqaado maadaama hadda meesha ugu ficneedo hooyo ayaa maraysaa ilmahaaga hadday kuu kala kaceen alxamdulilaah ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inuu dhibka ilaahay kaa dulqaado asina ilaahay ilmihiisa u soo jeediyo aamiin insha allah ilaahay waa awood iskale ayay adna maxaa ku darsanay horta ana waxaan ku darsan lahaa horta ninkaas ilmihiisa inkiray dad birka mala faa'iido keenay ninkaas ilmihiisa qaangaaro oo duurka wada maraya oo inkiray oo yacni naag dadka bacdi ay ilmo u heenin oo caasha u taagay horta dhibkeeda leedahay naagta ka hor ka mala tali lahaa ninka mala talaanay naagta ka hor oo ilmihiisa inkiraya la dhaabo oo magaalada marka ogoleen in cilmiga qabtaa iyo xaasma qabtaa loo dhahay ma qabiya lagu dhaabo horta adduunka waxa loo jooga loo saaray yahay wuxuu awlaad sax dadan haysan bo maalmo balca ku bixiyo aba wax walba ku bixiyo si ku helaan raadiyo ma fahantay marka duu ilaahay siiyo ilmihiisa inuu gacanta oo qabsado maakin wax walba la wadaago nolosha kasta oo la qaato meel walba uu geystay ilmihiisa waxa uu wanaagsan malahan naag hadda ka bacdi caruur ku heen ilaa ilmahaada uga tagta ma ahan waxaan taagana walaalo haddii wax kaa qaldan yihiin qoran inta saartid faatixada lagu mar ilmahaada iyo reerkaada iyo xaaskaada dhaqo naag hadda ka bacdi isku filan isbiilinaysa waxba ku filan ilmahaada fiican naagtu xaalir xoolaheeda la yiri waraaba ka qayli naag xoolaheeda waxba ma baarmad waxaygi ay bilta warganta ma wado marka dad ilmahaadina oo tagto waxaad faa'iido adduuniya aqal waxaad faa'iido ma laha bas ilmahaada wax u qabaysan cid wax u qabaysan ma jirto aan taaganahay xaaskaas iyo caruurtaada dad xaaska wada qaada rabin xataa ka soo goday soo rabin nin waxa jira baa xaaska la cumogtay dad xataa xaaski oo soo rabin xataa iska furo hawl baas ka bishan taagan wiilka ilmahaas soo yani ilmahaas ha u dhintaasi maanta hadda gabadha loo tagnaa gabadha maxaad kula talinaysaa adiga Leyla ahaan aniga gabadha waxaan kula talaa dawa silacaas ay qabtaa iyo fad ka saa baahayn madow u daayso ka dhuumaa horta dhowr ko bir ka maqnaa horta ha arkay yani rafada inay ilma dhaga ka tagin laakiin dhowr bir ka maqnaato wiil waxa ka soo madax tagsato wallahi abaa ma fahmino ma hadda madaxano ma la karaya bilaadan madaxano ma aha laakiin abaa ilmaha iyada ku soo tacbashay oo yani hadda meesha ka tagleed ma joogto gabadhan ما يعني كمان كم تجايو يعني والكتجايا هبي مدو ويا كم غناها يعني واحد تصنع حنونك إلمها إليه مركو أركو يعني المس حنونك إليه إنك أو دريم ما يعني هو يحكي هسق ودريم ما فاهمينه هكذا درسنا ما بيلاهم لأنها بيكوس في علم هذا هذا تانكي كتير سمو وجوكت بجودان حدر ما يروح تقول حدر إنسيسو يعني درنسيسو يعني وكتب تقولها من ويك ما قطع ما تقدر كمان سود ويك ما قناته بل هأركو هو يدا يحيي هايسي وحكالاتو لما حاجر موقت إيه سوى إنها هورت حيم يقوم لها يعني كلين حد قبطها عادي يا شاورت هاتو سيسو ويك كم قناته فهمتي طب رأسه سؤال أنا ما حأرك دكور وحام تعوذي دور يويل إسقوي محاد عاد يعني أنا سوق القيلي محاقبتها محاد يشاء واحد قبتها منها أنا صلاة ديان بحق فيك كأمر الشقية كان أول حلقة بتاعتها قولوا قد بكوا لي ما بوجيه مية بين كده ما بيخلوا مطاو ما يخلوا تبي كده حاجة عاد أنا بسبب أب عانى السيد بسبب أب بيارة بسبب أب قال بس وش هو عشان ما نروح نسوي جروا هورت وكباريا وكتوه واحد دون قاعد يعيشها وقصة منها المر لك على ما sidii ku imaatay hay maatay dad xanuunka ilada hooyada hayo dan dareemo dhaha ee gaar la qofkun iko jiri gaar la qof marka waxaan tagan inay dareensiiso qaabyaasha qaar oo og yahay kasto ma kuwa ogay in dareensiyan jeclaa kuwa ogbo kuwa ogneen in dareensiyan jeclaa dadka kale ra'y dadka kale waxay Soomaaliye Leylo ahaan taas kula talis ani ahaanteedina waxaan ku dhahay barkala kugu celinayaa maadaama intaas oo sano ugu soo dul qaadanaysa ilmahaaga aabahood oo dhowr iyo 10 sano baa kula nooneed dhibkaas iyo rafaadkaas haddana meesha ka tagleed ma joogo insha Allah wuuna ka dhamaan doonaa idoo Ilaahay waana ku soo duceynaynaa indoo Ilaahay ka dul qaado abaa ilmahaaga teemkii hadda aqligooda soo buuxinayay oo nin walba haddeetan oo cirka taagan isku maleenayo waaye Ilaahay kula gab galo ilmahaagana ka dhax bixin abaa asa ilmahaaga abood u soo jeeso doon insha Allah asxaabteydina waxaan leeyahay تايجيني كديبتا أصحابتي عصبنا سبسكرايب كنو صار إن شاء الله أصحابتي رجوكتنا وحاليا هاي وصو دعية ولا شيء إلهي وصو بري إنه إلهي يبقى يعلاسك كدول قاضو dadku waxa la yiri waa isku dad hadana waa kala ra'yi ana qof walba wuxuu aaminsan yahay ra'yi uu qoondeeyaa ma khusaysan qoondeeyaa qof walba wuxuu aaminsan yahay ma ahan
anigu sida ayaan sameyn lahay ayaa sheegay sama adna si gooniya saqatay yani labada kala ma qafana asxaabtana waxa laga yaabaa inay ka noqdaan kuwana adig soo raacaan kuwana ay soo raacaan fahmino إن شاء الله وحقائق كجرو إلهي كوفوذايو بركة الله إلهي إن شاء الله مركز توصل إلهي وحق صورة ووجه إنه هو يتابع حق صورة إلهي وعدل حق الصورة إيش ما أنت مدة لو حاب كيلو بحيتري قف يعني يقص ما أنت إنه يقص علينا ما هستو إنه هي ما أنت بلا وقتي ما هستو شقنا ما أقاني الله يرفضه هاد حنتها شغاله ما أقاني وما أنت أنا هانتي المسكة فكر لها صح فكرتي marka abaa ilmo wixii dhalay lama horo insha Allah waxaan ku leeyahay walaalay ilmaha iska hayso aabahood maadaama toosan u dul qaadanaysa hadana wax yar ku dhimanba samra dadka sahlan la dhahay iska sadkaada maalin baad helaysaa insha Allah inuu intaan ka fiicnaado ka wanaaga oo laga yaabo dulqaadkaaga markuu arko markaas asxaabteeda qeyr badan yarjeena warka xogaa waa ka luusay oo maleeyo talo iyo tasaalo inta idinka la inkaga fadhiya asxaabta waakas abay hadaan warka xogaa ka luusay waakas iga raali noqdo asxaabteedana waa arkeena waxay ra'yi ka dhiibtaan insha Allah qeyr badan ay bi anis laga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh